waxaa tahay asgari ka tirsan ciidanka xoogga ka soo boqolay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ka cabanayo xuquuq la'aan anagoo og in madaxda qaranka ay sheegtay in xuquuqda asgariga ku sugan shaqadiisa xuquuqdiisa oo helay adiga ahaantaada ma adiga kaliya bay ka maqan tahay ama ciidanka waa kula mid ciidanka dhammaan waa ay ka maqan tahay xuquuq la siiyaa ma jirto aad iyo aad haddii uu raiisul staafkiisa inta siiya lacag yiraahdo ciidanka difaaca waa qabiil lamana siinaayo qabiil ilaahay quraankiisa ku sheegay waa taaraf asagaba waa qabiil dawladda federaalka ku dhisan okay shakhsiyaantii markaan ka hadlo raiisul wasaare uu ka ahay wadanka markii aan difaaca محمد عبد الله فرماج مدحوينها الصومالية أديات شلون أسكري ما هين ما أنت قبيل منه أديات لكن هو نور شيء إني أسجع عاطفة قبيل أي كدرته شلون يمد بينه وبحر أديات لكن وعم شيء برلمان الفدرال كالصومالي يكون شغال يسجع أسجع على قبيل وروح حساب ما حد ugu baaqaysa برلمان كفدرال الصومالي maadaama asgari qorraxdan taagan qabowgu ku dhacayo dhibaatooyinka kale ee rasaastana ay ula mid tahay tahay maxaad ugu baaqaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka waxa uu baaqaa in ay la xisaabtamaan wasaaraha propagandada iyo qabiilka uu nagu sheegay qabiilna mani ilaa iyo shariif Axmed ilaa hadda taaganahay raiisul wasaare wadanka ka ahay farmaajo maanta waa madaxweyne hadda cali khayr shalay soo yimid oo maanta yiraahdo waa qabiil ciidan aad waa propaganda waa qalab haddii ay mushaarna siiyeen annaga taagan aad difaaciyaan taagan haddana waa ilaa wiilna waa taagnaan aad marka waxaad leedahay waxaad u baaqaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay la xisaabtamaan xukuumadda maanta jirto propagandada iyo beenta uu been abuurka u wado marna uu leeyahay waa qabiil marna uu leeyahay ciidanka agtiisa waxba kama jiraan beeraley dukaanley hay idinka naftigiina waxa idinku in hoteelo wardiisaan amba aad dad adeeryaashiina aad la socotaan sida wasaaraha uu sheegay arrinkaasi maxaad ku beeninaysaa waxaan ku beeninaa taas indhahaaga u jeedo meesha aan taaganahay ma ahan hoteelna ma ahan in adeerkayna la mid difaaci qarankan taaganahay gaadiidkan nafa iman Muqdisho waa mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo maaragtay mushaar la'aan darteed uga soo baxay furmihii difaaca ay ugu jireen iyadoo dawladda ay maaragtay ay ku eedeeyeen in mushaarkoodii ay musuqmaasuqday sida ay hadalka u dhigeen balse ayagu ay go'aansadeen haddii dawladdu ay mushaarkoodii ay inay dhiibto sheegtay ayagana aysan qaadanin inay isaga soo faarujiyeen dhammaan wixii halkaas ka dhacana ay qaadi doonto mas'uuliyaddeeda madaxda ugu sareyso dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay ugu horeeyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo raiisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo golaha shacbiga ay kala dul dhaceen iyadoona sheegeen in ay gabeen la xisaabtankii xukuumadda sida darteedna ay ay dusha ugu tuurayaan haye ma asgarta cid la hadli kartay ma jirto إن أفر عمو استاذ كذا طول عكسي ولا إذا كقرن كالعقد وسينا مال ما أنت الحين هيا الله حساب تمضي حتى لو حنقصنا برا فدرك وارد تسكت الوزراء وحش شيء مسماسقة إنه لا دجالمو مسماسقة أو كسر مارت شغالة ريتك أو كسر عرب تري هذا نرى إنه عيدا كميش وجودن بيسق مسماسقة لقى عرب تراي مارتي أي تاعي أريد كاسي ما حدكم النساء وحنكون بيننا مسماسقة إنه واسقة سلبي وياي أفر عمو استاذ كذا ما تقول إذا كان عكس ويرا قصة ولا ميديا سوي استاجو ويرادو العكس واسي عيدا كقرن يقول بوليس أساسي قاس عنا ولعبتها وصل لقاه وقصي أديات ولعبت حق ذلك وقيبي أديات هاي ومتك ميدا عيدك حق ذلك الصوماليين مقعقة وهذا معنا حسام محمد حسن فريسين كأقول عيدنا هالكيه جوهر هذا وحن جوجنا قريبا كميدا دقمة برعت ما حد وقصوا بحث فريسين كأقول عيدنا يدوروا تكوجوجي ما حيتها البطاس من اللي بدأ يكرتها دولة الصومالية waxay sheegtay in xuquuqdiini ciidan cid alaal cid ku sugnayd goobteeda shaqo la siiyay
adigana waxaad sheegaysaa in baahi darteed aad uga soo baxday difaac aad ku jirtay ee aad ku difaacisay qarnimada Soomaaliya taa maxaa ku beeninaysaa dawladda Soomaaliya wasaaraha oo ka mid ah madaxda ugu sareyso madaxweynaha marka uu ra'iisul wasaaraha ahay wuxuu yiri muhiimadda koowaad ciidankaada muhiimadda labaad ciidankaada wax kasta ciidankaada uu yiri si markuu ku soo fadhiistay aan ku faraxsan aad haddaan nahay aan ku faraxsan hadduu madaxweyne noqday oo intii shalay inuu nooga fiicnada aan dabarjab ayaa lagu yiri meel uu noogu yiri saacadaan waxayna qof shakhsiyaad ku taagan hasa cala qayb iyo xaquuq waxaan ka codsanaynaa inay xuquuqdaan sida meesha inoo siiyo haddaan dhaawacno dowladda nama daawiso haddaan dhimanno agoon tahayna dowladda ma daryeesho haddii aan nool nahana ma daryeesho baarlamaanka guryahii hore jijiifo $3,000 ay qaataan anigoo duurkaas jooga oo kale إن دفاعي كم كل الله لك الأسواق عشان يدور الضياع حتى لا يقوم وحنقعد صار إني مدحوينها الصومالي وحوش شيء لكن إن ما أعرف $100 هذا قرن كده دافعين لكن ودني ما الربع إنه تكون دافعين قرن كده ودني آياتها الصومالي القرن الصومالي ومارتي وتاجن هدي جر دفاع عيسى هدي الحقوق ذا ويسو ومارتي وتكسر بحيسها فرمه كالعقل عن وأكو شقي جرني يدي أكو شقي جرني ومعناه وأنا ضلق على جرني دلك يدتك أنا كواس كله وأقول لي محينا لكن إذا بدرها لقى شيء قال إذا علاه وعيدك العسل سيني لليه أنا كلهم باهنا أنت أصلا وجري من الدفاع هاي مقعد أزقري دق حسن قاعد دق فريسين كاجي عيدنا هالكيد ما هداي هل ده waxaan ku sugannahay qayb kamid ah degmada Balcad maxaad uga soo baxday فريسين كاجي ciidan ee dawladda Soomaaliya kugu waxaan uga soo baxay mushaar la'aan mushaarku ku halkeysana andala waxaan nagala goosta garaamaad mushaaraad wuxuuna wala tagay xabad rooti aan hadda saaka iibiyaan aan waxaan kala soo baxay Balcad aan habar ugu soo siisay masaakiin rootigaas oo hadda askarigaas la kala jabsay qaajal inuu wada geeso station dawladdu waxay ka dheereed markay yada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha ugu qasbin xabad rooti kala goosan ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri xuquuqdii ciidan waan dhiibnay madaxweynuhu wuxuu siiyay Puntland oo aan wax dagaal ayna ka jirin وكو أبرر لا تنسى عبد النقص عصا وحنا قصدي بالكم إذا بدأ Puntland جوا هل قيلا كذي أول ستيشن هو وضع على العكس إذا ما يشجع جهرو كجرو جيد جهرو شبه لا نحنا هل نموها قضي سهرة لفنا غير بقول كبا لحنا كيش أفرتنا وقا هي مقع عزقري علي محمد ربلا علي فريسين كاجي عيدنا هالكيد فريسين كاجي عيدنا وحواي دقمة ما حطاي محاد uga soo baxday فريسين كاجي عيدنا dawladda Soomaaliya kugu ogeyd waxaan ka soo baxay afar bilood ma arag horin aan ka tirsanahay horintii aan ka tirsanahay 100 iyo dhowr waa askari 9 askari ka qaatan lacag anagu difaaca koo qaadooda joogtay inta soo saraan qaad joog meesha waxa dhibaato keentay ciidankii isku raay amba isku hornaa amba isku gutaan waxna mushaar laga siiyay waxna waxa la yiri maleeshiya beelad waa asaas saraakiisha inagii maxkumaysaa lagu aflagaaday waxa la yiri maleeshiya beelad ana askari koorsiga soo dalka iyo dadka iyo diinta u dhumaysan intaas baan dadka nahay dawladda intaas baan dawladda u nahay ciddiga oo dhibaataas lagu hayso dawladda inay naga qabataan u baahan yaad isleedahan waa maartay dibkaasi waa idinku haya oo si qaasa waxaan u haysanaa anu gorta askar baana waxaan u haysanaa inuu ra'iisul wasaaraha dhibaataas lagu hayo ayaan u haysanaa ayaan askarta ciidanka runta horaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu ku jiray ololihiisa doorasho wuxuu sheegay inuu ciidanka daryeeli doono wuxuu sheegay waqti uu sheegi jiray ilaa iyo waqti uu ra'iisul wasaaraha waxa jiray inuu militariga dhisi doono askarta dhisi doono ayuu noo sheegay bacdina dhibaatadan iyo burburkan iyo militariga la bahdilayo mushaarkiisa qabal fiiha qabal carrada looga daadsay oo wax garaamo aan lahayn ayuu marsiiyay markay intaas baan dawladdu uga cabayna dawladdu inay wax ka qabataan u baahan baarlamaanka federaalka Soomaaliya la xal imaarati la xisaabtanka xukuumadda Soomaaliya asaga maxaad uga baaqaysaan
adiga cid walba dawladda xilka hayso amba baarlamaan ha noqoto amba wasiir ha noqoto amba madaxweyne ha noqoto amba ra'iisul wasaare ha noqoto waxaan u baahannahay xaqiiqda ciidamada xoogga dalka in cid wax ka qaban karto ay wax ka qabato oo xuquuqdeena aan helno maraan dalkeena u dhigno hadda ciidanku way socdaan waxa ii muuqda gaadiid fara badan oo dagaal waxa ii muuqdo ciidamo aad lixaad aad u hubaysan meesha dhabta ah jihadu waa Muqdisho meesha dhabta ah ee ciidamadaasi ku sii wajahan yihiin bulshada ma la wadaagi kartaa baabuurtana wadano u jeedo baabuur dawladdu ma jirta gaarigaas ماشي دولته جبت أيان هذا إنها دولته كشغل سنة دفاع هذا لما حقوق لا يتأثر بلما مشار قادم أو قران قادم يدنا يدعون بين أنا بدك خان على بين دولته ما يجتن هذه ما سنتهاي waxaa soo taray gaadiidka dagaalka ay ka soo baxay furmaha dagaalka sida aad arki kartaan waxa idin muuqda mid kamid ah gaadiidka dagaalka oo ka soo baxay qayb kamid ah fariisinkoodii ciidan kaasoo kuwaas cabashadoodu ay tahay in ay maaragtay ay tahay waa arki kartaan sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u soo faarujiyeen furmahoodii dagaalka ayagoo ka cabashadooduna ay tahay xuquuq la'aan halkan waxa joogo ciidamo boqolaal ah waxa ku soo aad u hubaysan qaarkood waxay ii sheegeen in xuquuqdoodii ay ka maqan tahay laakiin ay ku shaqayn jireen iyadoo xuquuq ka maqan tahay hase ahaatee markii dawladda Soomaaliya madaxdeeda ugu sareysa qaar kamid ah ay sheegeen in xuquuqdoodii la siiyay cara ka dhalatay inay uga soo baxeen furmihii dagaalka sida hore u dhacday gobolka Shabeellada Hoose qayb kamid ah oo deegaanka lagu magacaabo Dhanaane askar ka soo baxday askartii ka soo baxday fariisinkii ciidan in ay dib u la wareegeen al-shabaab waxa cabsi weyn muujinayo dowlad goboleedka Hirshabeelle waxayna aad uga cabanayaan fariisinka ciidan lagu soo baneeyay waxay yeelayaan askarta mid kamid ah oo rabo inuu ila hadlo asgari haye magacaaga عبد النور جمعالي فريسكا وعيد الربيع ربك جوه كعبنا سعد عن كعبنا أنا كعبنا دنا عيدك حق دلك وايحي مدحda ugu sareysa dawladda Soomaaliya sida wasaaraha dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegeen in xuquuqdiini lidin siiyay intii ku sugnayd furmaha ciidan balse cid ka maqan ee jirto shaqooyin gaar ah sida hoteelada iyo meelaha la midka ay wardiyayso in xuquuqdoodu ay dhiman tahay adiga ma waxaad ka mid tahay kuwa jooga fariisiga maartay ciidanka dawladda ee ku sugnaay maartay halka aad sheegtay marnaba kama soo bixin iyadoo la soo fasaxin xuquuqdeedina 4 bilood ma arag ra'iisul wasaarahana wuxuu sheegay in xuquuqdeedina la siiyay baan iyo kadaa'ibna waayo kaligiis cunuga celiya leeyahay hadda dalka kaligiis difaac ka difaaco anuguna waa ka soo baxan waxa dhici jirtay in mushaarkiina ay maqnaado muddooyinkii maartay la soo dhaafay dawladihii hore mana soo faaruji jirin furmaha dagaalka maxaa sababay hadda inaad soo faarujisaan waxa sababay anku marka hore xuquuq la'aan anku oo waxyaabo ay dawladda bacna markaas ay iyadu iska jirto tabara oo ku sabri jirna hadda laakiin anku furud ku sugan leeyahay mushaarkooda waa bixinay waana siin xuquuqdooda ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga in iyagu ciidanka ay nabaan oo ilaahay xuquuqdooda waa siinay anku aan furud ku sugnaano intaas aan ku sabri weynaa anku ku sabri waa ma jirtaa askarta qaar kamid oo ila hadlay waxay ii sheegtay in madaxda qaranka haddii ay idaacadda ka sheegeen in xuquuqdii la baxshay ayaga iyo reerahoodii uu qalqal galay ma garan kartaa cid saameyn ay ku yeelatay gaar ah أنا كان نقول يا ترى شخصيا أنا كومنت يقول يا سيجارة سامي يقول يا تأرجع أي شيء أو اللي بحتى يقول حقوق عينك كم كوب عنه أنت أصلا سبب بدن بدك أجر سامي هاي حتى أجرك ما رجع هذا عيد كوس صعدا وحقيقي مقضى جواري قاشامن وحقيقي مقضى كلية كديارها وحقيقي مقضى عيد أدو هو بيسن ووجيده لقى ده هنكروا على أدو فر بدن جهد ومقدسه هل كهذا يمقطع مال جار منو شيء إن هذانا نلاص سببين اللي نكوا حقوق الآن كتبين ولا اللي حقوق العيد كوا بحنا إيرس المساري عشان تجيرين يقول مسؤولية أنا يقول هاي وطنك دي أتصفر وجسم فرميه الدجال ودب ولا وريجان الشباب مسؤولية ده سياق هذا مسؤولية ده وحق هذا رئيس الوزراء يمحونا برلمانك الصومالي ما حد يقول باقي سنة سجى برلمانك الصومالي حقوق باقي أنا إيجا مثلوها هاي شعبك أسقرت وحول بإيجا مثلوها هاي
إن ضل على الدفاع ما ضل ما الدفاع هدي ضدك حوالان أي دقيقة ضلك واحد دفاع ما لقيت هذا شعب askarta qaar ka mid ah waxay ii sheegtay in idinku eedeeyay inaad tihiin ciidan beeleed taasi maxaad ka leedihiin waxaan ka leenahay ciidan beeled wax la yiraahdo ma jiro tuutada ciidan beeledna ma qaato gawaradan gaashaama dawladda dhiibtay hubka iida dhiibtay tuutada iida dhiibtay waxa iida dhiibtay haday in kireyso iida u taalaa goormee u soo qaranka inaad u shaqeyso aad bilowday waxaan bilaabay 2007 ilaa hadda waa shaqeynaysaa ilaa hadda waa shaqeeyo difaacan jooga weliga xataa iyadoo la fasaxay maana weliga difaaca ma shaqo laxsan ma tihin waad mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa mid kamid ah askarta ee ka soo baxay furmahooda dagaalka waxay soo tarayo gawaarida dagaalka ee soo gaaray magaalada Muqdisho waxay soo tarayo ciidanka waxa laga dheehan karaa wajiyadooda caro waxayna u baahan yihiin xuquuqdoodii sida ay sheegeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay waxay ugu baaqeen in xuquuqdoodii si degdeg ah loo siiyo ayadoona maartay ku eedeeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay jabeen hawshoodii shaqo daawadaashii sharafta leh waxaan idinla wadaagi doonaa hadba daqiiqad saacad waqti walba halka ay ku saldhigato ciidankani lixaadda leh ee aadka u hubeysan ciidanku waxay ku weysan yihiin garneelada garabka laga tuuro gawaarida boobayaasha culus ah saaran yihiin waxay ku weysan yihiin qoryaha BKM-ka ah waxay ku weysan yihiin qoryo kale ee maartay aad u culus bishu waa Maarso cadceedu way kulushahay wajiyadooda waxa ka dheehan kartaa caaro aad u fara badan ay ka qabaan hadaladii madaxda qaranka qaar kamid ah idaacadaha la wadaageen taasoo ahayd inay baxsheen mushaarka ayagoona ku sababeynayay inay qoysaskoodii ay saameyn ku yeelatay waa arrin maartay madaxda qaranka ay sheegtay in la bixiyo mushaarkii dawladda Soomaaliya ay bixisay inta ku sugnad goobahoodii kuwana waxay ka soo baxeen furmo dagaal qaarkood waxaan ugu tagnay fariisinkooda ciidan iyagoo ka soo dhaqaaqayo ayaan soo raacnay ilaa haddana wax xuquuq ah inaysan qaadan ayay sheegayaan intii aan wareystay laga yaabee inay ka jawaabi doonto markii ay aragto klibkani haddii jeer bulshada waxaan wadaagnaa waxyaabaha xaqiiqda ku salaysan ee bulshada Soomaaliyeed baahida ay u qabto waa idinla wadaagi doonaa saacad walba waqti walba cadceedu aad u kulul waqtigoo nahayo ciidankoo dhaqaaq ku jiro waa halkay saldhigato waa arki doonaa idinkoo aad iyo aad u mahadsan ila socda ila waqti walba saacad walba daqiiqad walba waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen live-kayga aad iyo aad u mahadsantihiin